halkani hadda aynu joogno waa biriishka galbeed ee magaalada Gabiley oo loo yaqaan saddex biriishka sida idin muuqata waxa ka soo dhacaya biyo xawliya kuwaasi oo laga yaabo inay waxyeeleeyaan biriishkan telefishinka SBC oo goobtan soo gaaray ayaa waxa uu la kulmay biyo xawliya oo ka soo dhacaya biriishka isaga oo dhinaca kale ee biriishku uu xidhmayba biyaha ka soo dhacaya oogada sare ee dooxan ayaa iyaga oo si xawliya u socda dusha uga baxay laamiga oo ka sarreeya biriishkan cabir dhan qiyaas ahaan 5 ilaa 6 mitir goobjoogayaal ku sugnaa guudka sare ee biriishkan ayaa noo sheegay in aanay hore u dhici jirin sidan oo kale in ay biriishkan biyuhu ku istaagaan balse mararkii hore ay biyuhu si waafiya u mari jireen biriishkan galbeedka magaalada Gabiley biyaha noqday ee istaagay ayaa waxa loo sababaynayaa in ay sabab u tahay dooxan weyn ee magaalada Gabiley oo halkiisa ugu horeysa laga sameeyay dhaambiyood kaasi oo ay xidhmeen gabi ahaanba biyihii ka imanayay labada doox ee magaalada Gabiley dhaamkan oo uu dhismihiisu socdo ayaa la sheegay in ay buux dhaafiyeen biyaha lagu qabanayo ee ka soo dhacaya dooxyada hareeraha magaalada Gabiley ka mara Jamaal Maxamed warsame bal waxaad nooga warbixisaa halkan waa laakiin Nimcoyinka Ilaahay ba kama tahay biyaha halka yaala ee fataasan iyo biyaha halka socda ayaa kala quwad bato kuwii xagga sare ku daay ayaa xoog roob ku badnaa waxaan leeyahay Ilaahay mahadi laakiin waxaan leeyahay ajil uu kordhi karo wadanka wax biriisha haluu kordhiyo ayaa baaqasan u tiraya dawladda roobabkan ay ka dhasheen biyaha faraha badan leh ayaa maanta ilaa xalay ka da'ayay guud ahaanba gobolka Gabiley taasi oo ay bulshada deegaanadaasi aad ugu diirsadeen waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Diin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley